tayada waxbarashada you guys are epic failure waxbarashada waa ku fail garoobdeen waana ku fashilanteen afar sano oo ugu dambeysay 7 sano ee hadda ah wax aad wax barteen oo jira ma jiraan high schoolka aniga haygu oranina iskuulaan furayna waxa eligible u ah 550,000 oo arday in ka badan ayaa eligible u ah high schoolka maxaa barteen meeqa ardaya ayaa high schoolka dhigatay imise ayaa ku baas garaysay 550,000 kun ee dhalinyarta ee grade 12ka bas eligible ku ah imise ayaa ku jirta imsa ayaa ku jirta bal maad ka jawaabi kartaa kuma malayn inaad ka jawaabaysid madaxweyne ku-xigeen cafwan adigoo raalliga ah 550,000 kun ee ardayda ee high schoolka eligible ku ah grade 12ka eligible ku ah 20,000 oo keliyata ayaa 4 sano ee ugu dambeysay galaysay taxaamada isku darkii 4 sano ee ugu dambeysay 1,000 ardaya ma aynan ku baasin itixaamka 12aad waxbarashadan aan ka hadlayno waa maxay marka dalkan aad dhisaysaan waa maxay dadkan aad dhisaysaan waa ayo haddii aydan u diyaarinaynin deegaankeenna in ay qaataan dadyow kaleeto oo wax soo bartay meelaha petroleumkan hadda la qodayana ay ka shaqeeyaan uneducated people baa dadkii oo dhan ka wada dhigtaan maqaasa waxaa rabtaan inaad naga dhaadhicisaan inaad dadka u adeegaysaan haddii aad dadka u adeegaysaan waxay ahayd dadka emotionkooda in aydan ku ciyaarin ood maqashaan qaylada iyo sawaxanka ka yeeraysa geeska gees adduunka oo dhan oo dhahaya war maxaa ceelkan hadda warshadan hadda shaqaynaysa maxaan ku leenahay simply maxaan ku leenahay waa maxay percentagekeena effectigeena noo leedahay waa maxay faa'iidadeeda waa maxay xageen ka akhrisanaa waxan maskaxdeedna iyo shacabka mas-uuliyadda idinka saaran you guys are neglecting it. It's very sad. It's very sad. It's very sad in aad ilaa ay haddeerto dareenkiinu uu meeshu taagan yahay the only conclusion aan samayn karayno waxay noqonaysaa annaga waxba kama qaban karno arrintan si dhaba maaragtay wax looga bedelayo isdiiwaangelinta ka warhaynta ardayda macallimiinta qaabkaan usoo jiidan lahayn dayactirka iskuullada tayadaas wixii aan ku korin lahayn oo dhan inaan xooga saarno muhiim haddii aan khudbadda madaxweyne ku-xigeenka ee waxbarashada aan dhegaysto every year saas oo kaleeta ayay u hadlayeen sanad walba tayada waxbarashada hagaajinayna okay private schools baa keenteen way fiican tahay but waxaan ka hadlaynaa complete overall oo la sameynayo wax walba dib loogu fiirsanayo waxbarashada waa inaan la gaarsiiyaa reer miyiga waxbarashada waa inay meel walba tagto online iyadoo ah la sameeyo macallimiin recruiters volunteers la sameeyo national agenda ay noqoto inta askari a qoraysaan istaa si la eg qof walba adiga laftirkaaga madaxweyne ku-xigeen in iskuullada aad macallin aad ka noqotid aad waqti siisid jaamacadaha aad macallin ka noqotid khasab ma aha in aad tagtid iskuulka madaxweyne ku-xigeen computer iyo laptop adigoo haysta ayaa kalaasyadii online ku dhigi karaysaa saacad iyo 2 saacadood because ma doonin inaad jidadka xirxirtaan dadkii aad dhibaataysaan aad mataqaanaa create garaysaan mataqaanaa power wax aan loo baahnayn gaas khasaarisaan adigoo meeshaada jooga 1 saac wiigii 2 kalaas waxbar 2 saacadood habeenkii samee qof walba oo idinka mida waa inuu ardayda waa inay iskuulada wax ka baraan ma ay iskuulada wax baraysaan ma kuwa jigjiga kiliyata illa ma tuulooyinka ugu yar waa ina class ka dhigtaan nin walba waa inuu shaqadaas u qabtaa
madaxweyne wasiir madaxweyne ku-xigeen cid walba car na tusa in aad doonaysaan waxaad samaysaan inta badan beera ayaad samaysaan dhulkaad qodqodaan biyo ayaa furfurtaan saacado ayaa lugaysaan safartaan waxaasoo dhan idinkama baahna with all due respect idinkoo meeshiina jooga national agenda qof walba agaasinka everybody waa inuu dhalinyarteena uu waxbaro qof kale banaanka ha nooga raadinina recruitment aan samaynina qof kasta oo dibadda jooga waxaad ka codsanaysaan in uu isagana uu volunteer uu sameeyo inuu dadka waxbaro dad wada PhD oo doonaya in mobilization lagu sameeyo ayaa jira dadkii oo dhan brain inta deegaan ku samayseen oo dadkii oo dhan ka soo wada baxeen ayaad even isku dayina inaad attract garaysaan waxaadna ku haystaan wax walba waan samayn karnaa waxa aad samayn kartaan ma jirto capable uma tihiin inaad deegaankaas aa maamushaan kaligiin mana maamuli kartaan because wuu idinka badan yahay in fact telefoonka kama jawaabi kartaan too busy baa isku tihiin dhexdiina so it's time to stop this nonsense it's time inaad dhahdaan we gave up annaka waxan way naga weyn tahay dadkeen wuxuu u baahan yahay in la wada fadhiisto la tashto wuxuu u baahan yahay xoog shaqada samaynaya wuxuu u baahan yahay qofkii injineera qofkii mataqaanaa even waxa ugu yar ee la samayn karo any kind of technology qof wax samayn karo in aad dadkii aad la fadhiisato dadkii aad dhahdaan annaku tala farahayna way ka baxday 5 sano ayaan isku daynay inaan dhowr wax samayno so if you keep on repeating the same thing over and over haddaa mar walba wax ku celcelinaysid ood ku celcelinaysid maxay noqonaysaa waa definition of insanity way the best practice adduunka meel walbuu ka jira shaqadan way idinku adag tahay mana samayn kartaan marka waxaa u baahannahay dadkii dadka caawin lahaa inaydinka hor joogsanin qof walba volunteer inaad u caawisaan initiative aad u samaysaan dadka meel walbay joogaan shaqada way qaban karayaan carruurteeni way baaba'een dadka adduunka dhan waan ka dambaynaa luqadii bay ku dhacayaan afamxaarka ahaa u sameeya volunteers qof kasta inuu meesha yimaado ma aha oo uu deegaanka wada yimaado adduunka technology annagoo xaggan joognaan kala hadlayna annagoo xaggan joognaan class dhigi karayna dad kale oo badan oo saasoo kala samayn kara ayaa jira and you guys just xaggaa intaa fadhiisataan microphone qaadaan dadka aad la hadashaan ayaa at the end of the day 100 qof ma imtixaan kuma baas garaynayso sanadkii ama waad ugu talagasheen waxan oo waa strategy aad idinku leedihiin ood ugu talagasheen carruurteenna iyo deegaankeenna inuu failure ay noqdaan ama way ka daran tahay haddeedan ugu talagelin because waa doqonnimadii ugu weyneed you cannot be wax kale there's no other definition 4 sano 5 sano ayaa dadkan itixaamkii ku dhacayeen shaqadana aydan qaban karaynin qof marba bedelaysaan marka waa stupidity waxaanayto waa inaad joojisaan sheekada arrinta gaaska waa inaad ka jawaabtaan because demographic changegii ugu weyna ayaa ka dhacaya deegaankeen haddii carruurtii ayna wax baranin ay ku dhacayaan intixaamadii kuwa kaleeta wax bartaa imaanaya xaq bayna u leeyihin inay yimaadaan but the question is haddaan environmentigeeni iyo wax walba anaga aanan samayn karin waa dhibaato kan baa kaa hor idinka horreeyey oo Soomaalida mudane Cabdi Maxamed Cumar ayaa isna sheegay in guusha mashruucan ay suurtagal noqotay kadib wada shaqaynta bulshada deegaanka ciidamada nabadgelyada iyo shirkadda Shiinaha ee mashruuca fulinaysa wuxuu u mahadceliyey shacabka iyo hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo heer gobolba isagoo sheegay in wadajirkaas uu horseeday in mashruuca si nabad ah lagu bilaabo lana dhammeeyo ugu dambayntii waxaa la sheegay in ilaa hal eel oo kale oo baaritaan lagu hayo mid ka mid ahna eelkii 9aad uu muujinayo calaamado wanaagsan oo ah in uu sidoo kale yahay mid batrool laga heli karo iyadoo shaqada qodistiisana ay socoto በጎዴ ይላል waxa weeye waa very sad gobollo aad u hooseeya ayaa jira maanta
aan samaynayno the same strategy cabdi ilay ahaa ay meeshan ay ka socoto in dadka mataqaanaa indhaha la qabto gaaskii intuu isaga furay tuubo ku furo biyo dab ku qabsiiyey markaasuu holcinayay kadibna wuxuu dhahay hadda barwaaqadii adduunka ayaan helayna after 7 years baa halkaas la fadhiyaa oo loo ogaa inuu gaaska uu soo baxayo tuubooyin baan meel walba marsiinanaa baa dhacay hadda waxaan ka hadlaynaa after 5 years or 7 years waxaan ka hadlaynaa after 7 years waxaan ka hadlaynaa iskuullada saan u hagaajinaa after 7 years this is the definition of a failure. F you guys. Bye.